dadku qaar waxay u arkeen in dagaal gooni uu kala dhaxay habargidir ama aad u diidan tahay xilalka ka qabanaya dawladda federaalka codkaas waa cod aniga aan leeyahay ku xaqiijinaya wuxuu yiri haween meeqay ku leeyihiin taban xisaabta hoose isu dagaysaa dawladda haween ka tirsan yihiin 13 sheegayeen waa sheegeen 7 habargidir 3 marusada 3 wallahi laakiin meesha xasan waxaa tiri wax walbo abgaal ka socda markii loo geerayo madaxweynaha mahad salaadi abshir buqaari baa lugta ku dhufan jiray iyo faarax sheekh cabdiqaadir ma saas uma dheheen feeri farcad waxaan ku iri hadda lafteeda idan mahad salaadi uu samaxteeda joogano faarax cabdiqaadir soo joogano wasiir iyo taliye ciidan ay yihiin ayay wali waxay qabaan in madaxweynaha la arki lahayo ku hadda joogeen ku haystaan Sheekh Cali qaybii dambe ee waraysigan uu soo gaarnay maalmahan waxaa baraha bulshada aad u haystay cod aad uga hadlayso qabiilka aad ka dhalatay abgaal xilalka ay ka heleen dawladihii dalka soo maray gaar ahaan aad ku durtay madax inagoo dul istaagi doono oo su'aalo ka weydiin doono ugu horreyn codkaas muxuu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta farcadow codkaas waa cod aniga aan leeyahay ku xaqiijinaya waxaana la dhigay wajiis family qol la yiraahdo qolkaas ayaana laga saaray sidoo uga baxay iyo tafaasiisheeda hadda ma hayno kadibna waxaa la geeyey baraha bulshada oo aan loogu talagelin ayaa lagu baafiyey marka intaas waxaan umaleynaa su-aasha jawaabteeda waa ku filan tahay codka waa kuu sheegay waata laakiin tafaasiisha aad kala bixisay iyo qaabka u dhigtay iyo dadka qaar waxay qaar ka aamineen in cadiifad qabiil kugu jirtay dad gooniina aad durtay waliba madax hadda xukunka qaybtooda hayay aad ku tilmaamteen madaxdii waqtigaas gacanta ay ku hayeen wal codkaaga dul istaagto waxyaabaha qaar waxa uu la jeedo faahfaahin naga sii aad u mahadsan tahay horta niyow aniga qof inaan dor ugu matalagelin laakiin codku wuxuu ahaa waaqici jira ayaan xog ka siinaya anigu ragan dhalay oo familkayga hoose ah oo ilmahayga ah su'aalahaas ugu badbadiyey dabcan 22 ahayd talada markaas maxamed cabdullaahi farmaajo ahaayey madaxda siyaasiyiinta oo mucaaradka oo noqotay dhisnaayeen oo iyaguna lacagtan oo jiray marka qiimeynta dadkan aan ka dhashay aniga ee abgaalka guud ahaan madaxdooda markii fila Soomaaliya ay tagaan ay ka qabaan ayaan horta u gudbinay anigu caruurtayda u sheegay xiliyadii la soo dhaafana waa dul maray inay xiliyana u arkaan xogo inay wax heleen xiliyana ay u arkeen kursigaas taro iyagu ay joogaan inay wax badan ku waayeen dad walaalahoodana ay ka macaasheen warka suuqa yaalay ayaan horta gudbiyey khasab ma aanu inaan aaminsanahay ama boqolka boqol aan waafaqsanahay ama aan maaragtay cidii wax la siiyay mesela aan ka xumahay in wax la siiyo iyo waxa la yiraahdaa xikaayatul xaal ama wax jira in la sheego waa shay waxa adigu aad qabtid ama naqdi ama salbi ama waa mas'ala kaleeto marka aragtida ay talka guud ay qabaan oo ah war anagu meesha hadaan tagno ninka yimaado mooyaana odagaas maahina wax kale meesha ma yaalin ayaan horta u gudbinay mid kale aan ku sheegaa marka waxa dhacay oo hadda anigu tafaasiil badan meesha kuma sheegin laakiin hada su'aashaada keentay waxaan waa inaan wax sheego arin talku ay la aamusan yihiin oo aysan aad banaanka dhigin xumaan aan loo arkayn oo bal lagu amaani karo madaxda mudloodka markay tagaan kursiga amaan u ah ayaga laakiin dabcan qabiilku uusan ku qanacsaneen ayaa jirta anigu qabiilka boqolka boqol ku maracsani dood inay ka qabaan arrintaas laannahu qofku hadda waxaa la yidhi muqaasin ama qaluula ama qad qofku hadduu wax maamulo ama waa inuu qadaa ama waa inuu wixii asagu xoogo wax badan ka qaataa waxaa normal ah madaxda mudloodka hadda ka hor maxamed cabdullaahi farmaajo markuu madaxweyne ahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu casho u sameeyey anu ma joogin cashadaas laakiin waa lay sheegay 70 mudlooda uu sameeyey casho oo imaamka iyo ugaaska iyo ra'iisul wasaare cali maxamed geedi ra'iisul wasaare hore iyo gobernatooriya markaas joogay iyo kulli iyo wasiirada iyo kulli ku jiraan iyo aqoonyahan badan markaas wuxuu yiri bal warama xagga cilaaqaadka caamka aad qabaalka wuxuu xiriiri u ahayo aad soo yani iska ula socda bal warramuu yidhi sideed u aragtiin dawladdan maxaad tabanaysiin maxaad iga cusanayseen qaraaba soo dhawaada dabcan ayagu ma dalban isagaa dalbay isagaa yidhi halay keeno dadka waa dhici kartaa inuu gobernatooraha iyo wasiiradiisa u soo maray marka reerku marka waxaa lagu yaqaanaa dadka wax raaraasada ma aha dad iska shaqaysta waayo inta badan oo aan dawladda aad ugu mamanayn waayaraniyo madaxweyne maxamed cabdullaahiyow dawladdan 32 xil ayaa la qaybsaday oo باور شير lagu qaybsaday
annaga haddaan muduloodna hal xaba ugama jirno gobol meeshaan oo shan nin iskula qoran tahay warqad oo awoodiisa la qaybiyey oo la magacaabo oo ninkii magacaabo un ka baqaayo cidna aan agtiisa la tigi karin baa aan laga soo qabtaa inta badan isagana laga daba qaylinaayo laakiin dowladdii dhexe awooddii dowladnimada iyo maamul goboleedyadii baahsanaa waa ka maqnaa macquul ma ahan 32 xilmay ka maqan tihiin haa bal ii sheeg wiil ma sheegi karaa farcad ma sheegi karaa okay waa sida looxay uga baxeen waxay yidhaheen dalka waxaa ugu sarreeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha fulinta yani iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka 3 waay kuma jiro labada aqal guddoomiye iyo 2 ku-xigeen ay leeyihiin aqalka sare kan kale waa 3 iyo 3 kuma jirno 9 isku yihiin intaas 5 maamul goboleedoo madaxweynayaal dalku leeyahay kuma jirno waa la soo doortay 9 iyo 5 waa 14 4 wasiiro ayaa jirtay kuma jirno waa 18 4 taliya ciidan ayaa jirta kuma jirno waa 22 garsoorkuna 5 hay-adood oo muhiim ayuu leeyahay waa maxkamadda sare maxkamadda raafaanka maxkamadda gobolka xeeraryaha guud ee qaranka iyo garyaqaanka guud ee qaranka 5tana kuma jiro 22 haysatay waa 27 kaabayaasha qaranka oo powerfulka ah oo xafiisyada qawiga oo shaqeeya waa guddoomiyaha bangiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa iyo xisaabiyaha guud iyo hantidhowrka guud iyo chief migration ama agaasimaha baasaboorada majlis iyo jinsiyadaha 5tana kuma jirno 27 balaas 5 waa 32 32daas xil oo dalka ugu muhiimsan waa ka maqanaa waa aad ula yaabay wuxuu yidhi haween meeqay ku leeyihiin طبعا xisaabta hoose isu degaysaa haween mudulood haween ka tirsan yihiin haween 13 ay ku leeyihiin 13 waan ka maqantiin waan ka maqanaa 13 ka sheegay yirahayno waa sheegayno 7 habargidinay 3 marusada 3 waa lahaynay haweenta kuma wada jira haween laftiis kuma wada jiro laakiin 3 ilaahay nasiib uga dhigay ayagoo haddana sii weydiiyay waa tafaasiiliyeen mid u sii sheegeen مثلا waxay yiraahdeen qoyska 7 iskale waxay yiraahdeen gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare koobaad gudoomiye maxkamadda gobolka banaadir hantidhowrka guud ee qaranka chief migrationka wasiirka arrimaha gudaha taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha galmudug 7 haystaan hay 3dana ra-iisul wasaarihi gudoomiyaha maxkamadda raafaanka iyo waxay haystaan gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe meel aad u muhiim ah hay 3 kale madaxweynaha hirshabeelle xisaabiyihii guud iyo garyaqaan guud haystaan annagu waa ka maqnaa intaas oo dhan waxaa la yidhi marka maxaa u sababay waxaa u sababay kursiga ku fadhidaan ku fadhino kursigaad ku fadhido aan 8 sano xiriir ku fadhino ninka kursigaan ku fadhiyo ciddaan ka dhashana dad kaleeto wax siiya ciddiisa soo maxsuusto intaas marka uu garowsaday waa macquul uu yidhi walaa waa macquul asagana waa weynuu yidhi hadda waa adaa fadhiyaba hadda maanta saasay tahay annagu waxba ku weydiisamayno kumalihin annaga caawa waxna sii adaa noo yeerta cashaana siisa waa maasan tahay salaanaan kugu nimid wax aan kaa dalbanayn laakiin xuddaasaan kuu sheegaynaa macnaha ciddi inay talisyadii iyo wasaaradii muhiimka ahaa iyo garsoorkii oo dhan iyo maamul goboleedii iyo kulli ay ka maqan tahay marka adigu wallahi waa ka xumaho yidhi aniga hadda mas-uul ka maahi marka saas ay tahay anigu madaxweynaha ayaan ku taageersanahay inuu yiraa iska shaqaysta kursiga dalka ugu sarreeyaad ku fadhidiin waxaan kale Soomaalida in loo qaybiyo taas ceeb ma aha akhiran adigu 3 kursiyaan umaleynaa inuu siiyey taliya xoogga iyo garsoorkana mid uu soo geliyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka umaleynaa inuu siiyey madaxweynaha hirshabeellena cali guud waatu ka mingalay isagu arrintaas uu ka duulay marka taas waxay iska ahaaday arrin taariikhi marka warka fadal codkeen waxaan rabaa inaan ku laabto waxa qayb ka mid ah codka aad ku sheegaysaa in madaxweyne Sheekh Shariif uu ahaa madaxweynihii sida weyn ula dagaalamay beesha aad ka dhalateen adiga madaxweynaha ee abgaal ugana hiiliyay habargidir wili magacaas sheegtay xilal badan in gobolkan iyo meelo badan uga dhiibay dadku qaar waxay u arkeen in dagaal gooni uu kala dhaxay habargidir ama aad u diidan tahay xilalka ka qabanaya dawladda federaalka waxa ku jawaabaysaa فرع الدوام ما سنت ما بالعكس هو أنا هبرق دي الواسع بدي وهذا كان وجع هذا كور هالكا ورئيس أن كدي بنا وعن كوير ما غان وسيلة أنسية إعلام كذا هذا وعائري هبرق دي هلا صار هير شباب هلا تجيو
degmooyinkooda iyo xeebahan dherarka badan leh maxaa yeelay abgaal ama mudulood waa ina camiraan waa diideen nimankaasu istismaarka iyo khadamaadka iyo shaqo warka ku fiican yihiin walaalaheen habargidaan ka wadaa marka horta aniga habargida wax iga dhexeeya ma jira oo wanaag aan ahayn bal ayaga saaxiibaday reerkan ka dhashay ayagaan uga saaxiibo badana ayagaana isaga xiriir badannahay culamaha ahaadaano aqoon-yahan ahaadaano siyaasiyiin ahaadaano kulligood ha ahaadaano waat hadda aan kuu sheegaya ninka hadda odaga oo meesha anma jooga dadka ugu dhawaan ka mid ahay oo talooyinka siiya wixii aan gacan kasi karna ka siiya culammada aan isugu dhownahay iyagay ka dhasheen oo aan wada shaqayno siyaasiyiinta aqoon-yahanka aan isku xirannahay taas horta meesha kuma jirta ba yaraatee arrintan waxay ahaaday xaalad ka turjumaysa dadka waxa ay qabaan oo ciyaal loo sheegaayey wax dhacayna waayo wax taariikhi ah ahaayeen hadda wax laga been sheegay ma ahan inay abgaalka ay qabaan inay sheekh shariif ou dhinacaas ciddaas aada ugu jajabnaay meelihii ugu muhiimsanaa maraafiqda amnigana u dhiibay caloolka hadal ay qabeen caloolka hadalkaas aan horta anugu banaanka soo dhigay kow inuu u dhiibo anugu sheekha ku duri maayo oo waa ku qaldan yahay male mana dhihin anigu waa ku qaldan yahay dadku saasay qabaan aan idhi abgaalku saasay ay qabaan inuu xeelkaas ku ugu muhiimsanaa isagu ku taxay weliba keligiis ma sheegan xasanna markuu yimidaan ila isaguna qayb uu ka qaaday abtaalkiisa uu siiyey ma qarin laakiin meesha xasan waxaa tiri wax walbo abgaal ka socda markii loo geerayo madaxweynaha mahad salaadi abshir buqaari baa lugta ku dhufan jiray iyo faarax sheekh cabdiqaadir ma saas uma dhehena feeri farcad waxaan ku iri aragtida madaxweynaha culays ay noqotayoo nimanka ku hareeraysan oo magacaas soo sheegay ayaa mararka qaarkood bajaanis aan kuu siinayn inaad la kulantid laakiin laba qof ka sheegtay waa mahad salaad iyo فرح labadii ugu dhaw ay ahaayeen wasiirka labadii wasiiro madaxtooyada isku soo daba maray bay ahaayeen anigu labada dacwo gaar uma qabin laakiin nimanka madaxtooyada madaxweynaha ugu dhaw ilaa haddana ugu dhaw yihiin maya kulamada madaxweynaha in la kulmo waliba ma isaga si gaar ugu maaysanin laakiin dhacdo waxaa jirta ma rabo inaan hadda sheegada ay xasuustay laakiin ma rabo inaan sheego hadda ka hor inta imaamka iyo odayaasha ay yimideen abgaal ha ninkii odaga ahaayo oo dee xoogo qaybta xafiiska hoose joogto feri mar kastaba shaqaalaha hoose waxay ka amar qaataan ninka xafiiska xukuma xafiiskana wasiirka madaxtooyada iyo agaasinka guud oo maaragtay markaas jooga ayaa ugu awood badan madaxweynuhu inuu soo ogeynaa dhici kartaba marka eedda marka mar walba ay eedi jireen inay madaxweynaha iyagu is arkeen ilaa aad naadir inay taa maahina waxay ku dhici jirtay dadka xafiiska haysta oo iska dabiici saas ay tahay anigu waxaan ahay la taliyaha madaxweynaha oo arki jiray madaxweynaha raggaa saaxiibaday waaye waa wada shaqaynaynay wax cuqdada nagala dhexayso laakiin sheekadii suuqa tiilay oo haddaba haddaad wareysatay ciddaan ay qabtay oo hadda lafteeda idan mahad salaad uusa madaxtooyada joogin oo farac cabdiqaadir uusa joogin wasiir iyo taliya ciidan ay yihiin ayay weli waxay qabaan in madaxweynihii la arki laayay kuwa hadda joogeen ku haystaan waa iska dabiici taas keligoodna ma ahan xataa qabail kale waa qabaan laakiin warkaan war dad hoose oo famil ah inay isu sheegaan oo wixii beledka jira leesaga war xog warramo oo qof kasta oo soomaaliya dadkiisa markuu la hadlaayo iyo saaxiibadiisa hoose iyo qoyska hoos la isugu sheego oo غير قابل للنشر la yiraahdo iclaan in loo soo gudbiyo aysan ahayn oo horta ahay marka warka iclaamka la siinayo iyo warka hoos la isugu sheegana sidaas isku xugun ma ahanba majaalistu waxay leedahay kalaam khaasa iyo asrar khaasa ay leedahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen roble waxaad codka ku dhex leedahay waa nin cuqdadaysan welina qabo cuqdadii abgaal ee sacad kala dhexaysay qayb ka mid ah codkaaga waxaad ku leedahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen roble oo cuqdadii abgaal ee sacad qaba ayaa wax saas oo kale oo abgaal uga diiday maxtooyada qayb ka mid ah codkaaga haba yaraatee ani maxamed xuseen roble iyo waa cuqdadaysan yahay imaba soo qaadinba maxamed xuseen roble nin iska mustaqiima ani saaxiibkay u ahay oo wanaagsan waxa tamaan isla qadaynay aniga iyo labadooda kaleeto muxtarama maba soo qaadinba aniga diiradda waxa warku igu saaraay warbixinta aan ka bixinaay ما والله ما أنا كل ما حسوسته هدي أو جرانا واحد عرب كسر مري أو أنا لقى في سنة بوركاس أنا ما أمن سنة أنا واحد مزدم كل شوية مقتد أو قرار فديابة أنا أنت بدأ وركي وحكوا الساسناي لبدا اسم دحوينه يطلقوا وحي كقبان هي أسبابها وبهد خوش شرحية أي وحي تبنا أيان مدحوينه إيش ويكوكر لي هنا مركز كرسي وكفر جديد تلقى كلا تأذى ماشي وجوجا أنت كلا إسك آموسي أو أنت كلا واسكسي أي كوش قيان وين كو أمانين أنا كو أمانة يا تاسبة وما أركو
inay ceebta ugu dambeyn maanta madaxweyne xasan sheekh xukunka hayo la taliyaad u tahay weli habargeed xilal intii la mid ay dawladdii ka haysaa ma weli mowqifkii hadalka aad ku sheegtay un baa taagan tahay mise isbeddel ay jiro horta madaxweyne xasan waa saaxiibkay inuu madaxweyne qaranka yahay markii laga soo tago waana sa u sheegtay madaxtooyada ka tirsanahay khadiibka masaajidkaan ahay masuushaarkaan ahay dadka ugu dhawaan ka mid ahay la casheeye is aragtaan haba yaraatee horta shalna anigu ma qabin inuu madaxweynuhu ku khaldanay maamulkiisa iyo ragga soo dhaweystay waxyaabaha dadku ay tabanayaan oo odayaasha fadhi ku dirirka reer tolka ay qabaanaan ilmeyga u sheegaya maahine anuu dawladda xataa ma dhaleeceen oo waa qaldan yihiin anuu saacad uma dhihin haddana dawladda madaxweynuhu marxaladda hadda uu joogo iyo weliba tookadan iyo tii xataa waqti kala duwan yahay qofku tajrubo ayuu qaadanaya waxaaba la yidhaahdaa hadda madaxweynuhu tareenkii isagaaba sheegaba tareen yar haddaan shalay wato yidhi hadda tareenkiigu aad u weyn yahay oo baski yaray waa ka degnay oo tareenaan bedelnay ficlan sidaasayna hadda u muuqataa shalay tiim yaroo kooban ayaa waagii hore lagu tuhmayo inay ku hareeraysan yihiinoo madaxweynaha meel badan oo laga gala uusan lahayn laakiin madaxweynuhu hadda maanta waasic waaye soo sheega hore u sheegaba intuu kaambeyn ku jiray ama markuu la doortay tareenkii waa weynaaday waana la wada saaran yahay mudulku waxbuu ka saaran yahay habargedel waa saaran tahay weliba waa dadka ugu firfircoon waana ku ammaanan yahay madaxweynaha dadka soo dhisayoo garab istaagayoo ilaa haddana garab taagan waa ayaga waanan leeyihiin waa walaalkood waa walaalka ka weynaay waa madaxweynahooda waa saaxiibkood waa nin isla soo qariibeen waana rajaynaynaa insha allahu taageerada iyo garab istaagga iyo firfircoonida lagu yaqaano inay ilaa aakhir laxda la garab istaagaan iyaga laftooda iyo sii socoto anugu waxaan rabaa fi aakhiri hadi alkelima horta kelibkaas wax allaala cid allaala cidday ahaato qof kasta oo ereyadayda anigu aan ugu talagalay in familkaas hoose iyo xogo jira aan ugu sheego oo khasab aysan ahayn aan ku qanacsan anigu xataa anigoo la yaqaana habdhaqankayga dawladeed iyo aragtideeda iyo bannaankii taallaa wax qarsoon ma ahan iyo cilaaqaadkayga caamkaa nin hal qoys isku xili karana ma ahi hal shaksi gaara ama madaxda siyaasaddana aniga enerjiga iga gala difaacooda iyo taageeradooda qofka ka gala ma jirto ma garat waxaan uga bedelanayna ma jiraan xil iyo xoolo iyo midna kama rabo waxaan rabaa aniga dawladnimo soomaaliya inay najaxdo saasay tahay qof allaala qofkii farcaddow dhibsanaya wararkaygaas ama dhibka soo gaaray si gaara waxaan u raali garanaa beesha weyn ee habargidir ee walaalaheen ah ee nala dhashay oo run dad badan ay raadinayaan inay isku diraan ayaga iyo walaalahooda mudulood ma dhacayso ani warkaygu inuusan sabab u noqon in cuqdada la kala qaado in sidii shalay laysku hayo laysku ahaado wixii xilalahoo ay haystaan ka badan inay istaahilaan aaminsanahay waxaa loogu darana waa soo jeedinaa weliba wixii horena kama xumi oo ragga hadda magac dhabeeyo xilalkaas waa la siiyey dadku leeyihiin kulligood saaxiibaday ahaayeen weliba wasiir maxaan ku idhahdaa odawaa iyo kulligood iyo wasiir cabdisamad iyo oo ka horreeyey iyo kulligood taliimaha salaad iyo ilaa haddana saaxiibaan waaga saaxiibaan ahay waxayna saaxiibtinimo ka dhalatay wasla dhalana waa isu khasbanna ayaguna igama maarmaan ana kama maarmo wasla dhalana mar walba isu baahanna marka waxaan markaa codsanayaa in horta laga raalli ahaado waa raalli garaynaya qof kasta oo dhibsanaysa oo erey aan munaasib ahayn meeshaas uu ka soo gaaray ama shaksiyaan uu soo gaaro ama uu soo gaaro famil ahaan waa ka cudur daaranayaa mana ahan manhaj qabiilaysan ama cuqdadaysan sida kuwa facebookada soo qorqorayaan oo reer gaar u qabo ama aan reer gaar wax u quuri la'ahay ama reer gaar aan ciil u qabo haba yaraatee maaha mana ku shaqayn weligay anu xataa afar biloodka markay dagaalamaya labadan reer jenaraal caydiidna waa u tegaya calimadina waa u tegaya caanana ku ah waa la wada ogyahay xataa maalinta dagaalka ugu dambeeya afar biloodka dhacaya waxaan la qadayna caydiid annagoo culamo ah markaasuu jananka xataa idaacadda naga sheegay uu yidhi kadib markaan la tashay ag koobaad ag labaad ag saddexaad iyo culamada majmaca soomaaliyed sheekh maxamed macali anigoon magaceena soo qaaday markaasaa ciddi madalooday intay u kacdaa la yidhi adiga janankuuba la shaqeeya ninkan waa isla balaaro wax ka dhisay heerkaasaa la gaarsiiyey marka waxaas aniga danka ma galo ana alxamdulillah waa ka weynahay in qof iyo qabiil iyo koox iyo laygu riixo marka mar kalean cusboonaysiinayaa farcaddow adoon anuu kaaga mahad celinaya wasiiladaada iclaamiga oo naajixa qoyskana oo adiga laftaada waa ka dhalatay ciddi raallihayga ahaato wax allaalo wixii oo xasaasiyad oo dhinacaas ka dhashana hooyadan ka ahay geel haddii loo baahdana waa qalaa guri weyn oo dadka qaraabada aan isugu keenna waan leeyahay oo waa ogtiin garaadka ila dhashay oo xarunta garaadka weynaad meesha noogu taalla soo dhow